markaad maqan tahay magaalada dhan mugdi weeyo way madowdeen nabadda wada dhimaantiin meel walba aad inaga daawanaysaan soo dhawaada aaladda TikTok oo dad fara badan ay isticmaalaan oo bilyan gaaraya waxay noqotay goob waxyaabo kala duwan lagu soo bandhigo sanado ka hor aaladan dadka ugu badan ay isticmaalaan waxay ahaayeen kuwa jooga magaalooyinka markaan ka hadlayno dalkeena laakiin sanadihii dambe ama bilooyinkii ugu dambeeyay waxa aad u soo badanayay dadka ku nool miyiga oo iyagu aaladan waxyaabo kala duwan ku soo bandhigaya maanta waxaan idin wadaa sheekada walaalo jilaya lamaane TikTok dhexdiisa marka ay joogaan oo akoonkooda la yiraahdo ama ku soo gala magaca Jecelu 7 waxay soo bandhigaan muuqaalo inta ugu badan dhaantooyin ah oo si wadajir ah ay u jilayaan iyaga oo iska dhigaya inay yihiin lamaane balse xaqiiqda ayaana taas ahayn oo labadaasi qof oo wiilkii gabadha ah oo dahan aad u yar waa kuwo walaalaha bal nala daawada qayb kamid ah muuqaalada ay soo dhigaan baraha bulshada waana kuwo toddobaadkan aad looga hadalhayo baraha bulshada TikTok ay muuqaalada ku soo bandhigaan laakiin waxa la gaarsiiyay Facebook YouTube ilaa baraha kale ee la isticmaalo ayaa muuqaaladooda lagu soo bandhigaa nala daawada qayb kamid ah habjilinkooda qurxoon ee ay jilayaan oo dad fara badan soo jiitay dadka dhaantada garanaya waxaan filayaa in ay wali la ciyaarayaan oo sida ay ugu luuqeynayaan jaanta u rogayaan codkan playback ah ama telefoonka ka daaran ay ula jaasayaan aad wili la dhacsan tahay waxa jira dad kale badan oo miyiga jooga oo iyaguna muuqaalada sidaas oo kala ah miyiga soo bandhigo ogowna way ka xiisa badan yihiin muuqaalada dhalinyarada joogta magaalada ay soo duubaan dadka magaalada dhalinyarada joogta waxa laga yaabaa in badana heeso hadba markaas toddobaadkaas soo baxay oo kaliya ay iska daartaan oo ay markaas la ciyaaraan laakiin kuwan waxa xiisaha gaarka ah u yeelay waxay tahay inay joogaan miyigii oo laga yaabo in xoolihii iyo iyagoo saaki reerihi ay guurayaan iyo waxyaabahaas dadka Soomaalidana waa kuwa aad u jecel dhaqankooda marka laga sheekeynayo ama muuqaalada laga soo duubo miyiga marka yani wayna ka xiisa badan hadda wax ku dhow 300,000 ay ku leeyihiin bartan TikTok la yiraahdo ama TikTok muddo kooban aynu ku jiraan qofka magaalada jooga waxa laga yaabaa in 300,000 ay ku qaadato sanad ama 8 bilood iyo wax ku dhow halka dhalinyaradan wax ka yar 2 bilood ay ku gaareen taas oo muujinaysa marka xiisaha gaarka ah wax weyn ma soo bandhigaan iyagu barankay ma yaqaanaan oo dadka magaalada ay sameeyaan laakiin hadana dhaantooyinkaas hatta iyagu heesaha caadiga ah uma badno kaliya dhaantooyin ay soo bandhigaan waxaan dadka lagu la taliyaa hadii aad doonayso inaad bartan caan ka noqoto waa in aad sameysaa wax ka duwan miyiga tag muuqaalo soo bandhig waxyaabo kala samee laakiin baranki Soomaali 5 sano 4 sano daawanaysa macna gaar ah sidaas malan hadii aad doonayso inaad bartan oo aad looga dayriyo aad caan ka noqoto wad kuma sin daawashada muuqaalkan waxaan hayaa Xasan Ali Ahmed Cabdimajid Cabdiraxmaan iyo muuqaalkan iga saaciidad kuma sintin daawashadiisa nabadgelyo